dadyow sheekhiya shari shaqada qaran waa dugsiga shaandhaysa muwaadinkee dadaalku shaqaysta oo damiiraan shaasha qabin damiiraan shaasha qabin madaale ku sheega noqo madaale ku sheega noqo dadyow sheekhiya shari shaqada qaran waa dugsiga shaandhaysa muwaadinkee dadaalku shaqaysta oo damiiraan shaasha qabin damiiraan shaasha qabin madaale ku sheega noqo madaale ku sheega noqo jihaynta dhalinyarada abaabulkooda iyo samaynta fursado shaqo iyo dhaqaale waxay astaan u tahay marka uu maamulku xaliiban yahay ee uu higsanaya mustaqbal wacan oo ku dhisan aqoon horumar iyo dhalinyaro carbisan himiladani waa mid la dhalatay markii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku jiray ololihii doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomay sanadkii 2017 guushii doorashada kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu guntaday sidii uu rumayn lahaa balanqaadyadii ololaha iyo barnaamijkii u yaalay xisbiga kulmiye isagoo fagaaro badan ka sheegay inuu samayn doono barnaamijka carbinta dhalinyarada ee shaqo qaran ayaan hambalyeynaya cid kasta oo ka soo qayb gashay inuu hirgalo barnaamijkeeda oo maskax iyo muruq iyo shaqaba ku darsaday aad baan ugu mahadnaqayaa waa shaqo qaran cid walba way taabatay qofna keligii ma qaban qarankoodna baa isu tegey sanadii 2018 bishii tobnaad ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay barnaamijka shaqo qaran run ahaantii ma jirin barbilow laga sii anbaqaado barnaamijkan oo uu sii yaalay balse isagoo la tashanaya khubarada ciidamada iyo sidoo kale jaamacadaha dalka ayuu ku dhiiraday madaxweynuhu dhismaha barnaamijkan oo wax weyn ka taray jihaynta iyo carbinta dhalinyarada dalka waxa ugu horreeyaan qabanay waxay ahayd inaan bal diyaarino siyaasadii barnaamijku yeelanay iyo statuska waxay noqotay in laga dhigo xafiis hoos yimaada xafiiska madaxweynaha ujeedooyinkii ugu weynaa ee loo hindisay barnaamijkan shaqo qaran waxaa ka mid ahayd in la xoojiyo isdhexgalka dhalinyarada kor u qaadidda aqoonta iyo garaadka dhalinyarada ee dhinacyada sooyaalka taariikheed ee dalka iyo kor u qaadidda dareenka wadaniyadeed ee dhalinyarada dalka waxaa la doonayaa inay isbartaan oo qabiilka ka baxaan oo iyagu isku noqdaan hal unit community oo marka ay yiraahdaan dufcadii labaad baan ahay shaqo qaran waa saaxiibka waa dufcad baan islaahay halkuu reehbal qoran lahaa inuu ku abtirsado dufcad lahaa مثلا ninka hadda reer Hargeysa inuu saaxiib ku yeesho la saanood inuu sana ku yeesho ay keenta
barnaamijka shaqo qaran waxay leedahay ahmiyad aad iyo aad weyn sababtoo ah waxa weeyaan dhallinyaradii waxbaratay in laga soo jiheeyo qabiil oo qaran loo jiheeyo in laga soo jiheeyo gobol oo Soomaaliland loo jiheeyo inay noqdaan unit qura oo isku aqoona oo isbarta oo halkaa ka soo wada baxa waxay noqdeen kuwo isku dhafan oo ay ka baxday waadaalnimadii ay kala waadaalanayeen gobolaysigii ninjeclaysigii waxay ku yimaadeen iyagu meeshaas tartan ay u soo galeen oo adag inay ka midho dhaliyaan aqoontoodii iyagoon cidna ku tiirsanayn ilaahay mooyaan waxay ku yimaadeen iyagoon oday wadin waxay ku yimaadeen iyagoon wasiir wadin waxay ku yimaadeen iyagoona qabiilo wadin waxay ku baxayaan iyagoo doorashadooda ku tegaya meeshaas haddaan caafimaad ka reebin ama wax kale ka reebin waxaan safar ku tagay dugsiga carbinta shaqo qaran ee deegaanka Dararweyne si aan u soo arko dhalinyarada ku guda jira hawlaha maalinlaha ee dugsiga waxyaabihii ugu horeeyay ee soo jiita waxa ka mid ahaa nadaafadda iyo fayadhowrka dugsiga tababarka shaqo qaran casharada kala duwan ee loo gudbinayo dhalinyarada iyo sidoo kale goobaha gaardiska iyo jimicsiga kala duwan ee qaadanayaan iyo ugu dambeyntii nidaamka iyo kala dambeynta ardayda ee shaqo qaran dufcaddii ugu horeysay ee barnaamijka shaqo qaran waxay dhammaayeen 1500 oo arday oo isugu jiray 1 wiilala iyo 500 oo gabdha oo lagu soo xushay nidaamka loo dejiyay ee ku salaysan xeer nidaamiye loo sameeyay barnaamijka shaqo qaran oo lagu hagayo xanaanka iyo habsami u socodka barnaamijka dhalinyarada Somaliland waxa ku xeernaa waaye badan oo mararka qaar sababi jiray inay ka awood roonaato dabaysha doorashooyinka qabyaaladda iyo muranada baraha bulshada nasiib wanaag barnaamijka shaqo qaran wuxuu wax badan ka qabtay arrimahaasi markaad la sheekaysato ardayda waxay kuu sheegayaan in indhafur iyo waayaaragnimo weyn ay ka heleen dugsiga tababarka ee shaqo qaran markaa waxaan ku soo dhaxlay adayg iyo samir iyo magaranayay sidoo kale inaan dhalinyaradii Soomaaliland 6 gobol ee waaweyn dhammaan dad saaxiib ah oo walaalaha ku yeerano oo dad aan noqono isku xiran oo dadka isaga dhow oo isku mihnada oo isku qorshe ah oo isku hadaf ah fikirkayga horta isbedelay totalis waxa aad iyo aad isugu bedelay qalinkaaga markaad ku soo baxdo kalsooni baad heshay oo waxa iska ka bedelay wixii aad aaminsanayd qabiil baa cid lagu geynay caaqil markasta fikirkii horta wuuba dhamaantii isbedelay markasta waxaan fikirkayga isku bedelay mid aqooneed casharada lagu qaato xarunta shaqo qaran intooda badan waa kuwa qayb weyn ka qaadanaya dhisidda maskaxeed iyo jidheed ee ardayda waxa qofkan la baraya inuu amar qaadan karo si uu hadhow isaga amar looga qaato ama wuxuu xukumo horta isaga in la layliyo maskaxdiisa kibirka laga saaraya waxa qofka lagu beeriyo waxa la wadaniyad wadankii baa la jeclaysiinayaa wadankii baa la barayaa taariikhdii wadanka la barayaa barnaamijka shaqo qaran waxa uu socdaa muddo 3 bilood marka la qaato ardayda halkaas oo ay ku qaataan casharo kala duwan iyagoo ay la joogaan macallimiin xirfad dheer u leh culumta ciidamada Minkiis dhigta dhashiisu
haddaba marka ay dhammaato muddada 3 bilood ahi waxaa loo qabtaa xalfad qalinjabin ah oo lagu maamuuso ardayda dhammaysatay shaqo qaran waxaana halkaa uga bilaabma ardayda bog cusub oo noloshooda maadaama uu barnaamijkan yahay mid abuuri kara fursado shaqo waxaa mudnaanta shaqaalaysiinta la siiyaa ardaydii dhammaysatay shaqo qaran iyagoo markii hore ahaa arday jaamacada ka soo baxay waxaa loo gudbiyaa hay-adda shaqaalaha dawladda si loo meelayo iyadoo loo eegayo khibradaha kala duwan ee ay sitaan barnaamijkaas shaqo qaran waa barnaamij nagu cusbaa buu ahaa curintiisa iyo hal abuurkiisana madaxweynaha lahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaan qiimo weyn buu ugu fadhiyaa qaranka annaga xafiisaan culays buu naga dul qaadayo wuxuu fududeeyay in sanadka miisaaniyadda wixii wasaaradda lagu soo diray lahaa ay noqoto in shaqo qaran carbiskeeda la geeyo oo ay soo dhameeyaan 3 bilood iyo sanad marka la isku daro sanad ay soo dhameystaan wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa kaalin weyn ka ciyaartay hirgelinta barnaamijkan shaqo qaran wasaaradda ahaan waxaan ku daray kharashka ku baxaya shaqada qaran miisaaniyadda madaxweynaha ayaa runtii naga dalbaday in ku daro miisaaniyadda marka miisaaniyaddan soo ugu daray tababarka ku jireen iyo markii tababarka baxayeenba waana soo dhaweynaa waa mashruuc runtii aad iyo aad u muhiim marka uu dhammaado muddada barnaamijka qaybtiisa hore ardayda waxaa la kala dooransiyaa inay u shaqo tagaan hay-adaha dawladda iyo inay sii wataan tababarka ciidanka oo aqoontay baranayaan tahay heer akaademiga loona wareejiyo kuliyadda tababarka ciidanka Leyli Sarkaal ee Cabdilaahi Askar waxaan ka daba tegay ardaydii dooratay inay sii wataan aqoonta ciidanka Leyli Sarkaal halkaas oo kula qaatay waqti 2 cisho si aan ugu kuurgalo aqoonta ciidanka ay baranayaan haween markii ugu horeysay dhamaystay barnaamijka shaqo qaran ayaa ka mid ah saraakiisha wax ku barta kuliyadda Leyli Sarkaal oo tiradoodu dhantay 11 haween ah waxaan waqti badan la qaatay hablihii wax ka baranayay kuliyadda Leyli Sarkaal ee Cabdilaahi Askar safarkaas waxay ugu weelinaysay Niciime Cabdi Axmed oo ka mid ah suxufiyiinta dalka oo aan ugu talagalay inay hablaha Leyli Sarkaal waraysato la orodo lana jimicsato waxaan ku guda jirnaa walaalo dhayr routinkeyga wax qabadkeyga maalinlaha ahaa ee kuliyadda ku guda jirnaa hadda aan ka soo baxnay qaybtikooda physical training PT loo yaqaanay ee jimicsiyada aan quraac tagayna kadibna aan u soo noqonayna galaasaskii bilowda waxaan bilownaa walaalo bacda salaad subax markaan soo tukano ayaan toos bilownaa PT-da jimicsiyada kadibna meelahaas xilliga barkaan todobadana quraacda ayaan tagnaa waqtigii hore waxyaabo badan baan dareemaynay daal baan dareemaynay waxyaabo jirkii aan hore waxba u aqoono waxyaabo jimicsi badan dareemay maxay ayaan dareemayay laakiin wax allaali waxaan dareemay ma jir haddaan socday haddaan seexdo isku mid hablahaasi waxaa la siiyey tababar aad u adag waan kala go' lahayn habeen iyo maalin waxaan la baxay habeen ay goor dambe ahayd qayb ka mida tababarka oo loo yaqaan sahan kaasoo ay dibad wareegayeen dhul qudcura iyagoo socod ah ayaa lagu soo riday rasaas ay maamulayeen macallimiinta kuliyadda taasoo looga dan leeyahay sida ay isku difaaci lahaayeen una garan lahaayeen halka laga soo riday hubkaasi
waxaa aad ii soo jiitay hablaha ku jira layli sarkaal waxaa ka muuqday waddaniyad iyo daljacayl sidoo kale waa hablo tababaran oo ka dhismay aqoonta ciidanka wixii lagu tabco wuu qurux bataa waxaanay ka muuqataa ardayda kuliyadda layli sarkaal ee cabdilaahi askar ardaydii dhammaysatay barnaamijka shaqo qaran ee xukuumaddu siisay fursadaha shaqo ee laamaha kala duwan ee dawladda ayaan qaar ka mida ugu tegay gobollada ay ku nool yihiin halkani waa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaan kula kulmay qaar ka mida ardaydii dhammaysatay shaqo qaran oo qaarkood yihiin madax iyo saraakiil dawladda ah dawladda hoosaan ka shaqo bilaabay oo aan sidii ku joogay marka hore waxaa layga dhigay qaybta cashuuraha leegeeyay xoghayn baan ka ahaa dawn waa layga soo wareejiyey advisorka dawladda hoose waa assistant aan u noqday sidii baana ku shaqo galnay oo aanu shaqadeedii ku wadanay waxaanu ahayn dadkii fursad u helay inay ka faa'iideystaan barnaamijka shaqo qaran alxamdulillah waxaanu noqonay kuwa ku soo baxa fursadiina ka faa'iideysta siday ahayd nooga faa'iideysta hadeer oo ay tahay sanadkii waxaa la bilaabay sanadkii hore bishii koowaad iminku ay tahay bishii lixaad sanadkan alxamdulillah waxaanu nahay iminka shaqaale waxaanu joognaa dawladda hoose xafiisyadanu ka shaqaynaa anigu waxaan joogaa waaxda qorshaynta sidoo kale waxaan socdaal ku tegey gobollada sanaag saaxil togdheer iyo awdal runtii horta waxaan ku soo baxay tartan xalaala oo aan kaga baxay qarabakiil iyo in cid ay xafiiska geyso si kalsooni ah aanan tartanka ku soo baxay waxaan kolkore ka aaminsanaa inuu qarabakiil iyo dee barnaamijyo kale la isku dhaafinayo laakiin si xor oo xalaalayaan imtixaankayga ugu soo baxnay den waxaa la geeyey darar weyne halkaasaan ka bilownay tababarkii jidhiska iyo kii xagga maskaxda ee sifigii den waa lanaga soo qaaday markuu waqtigii noo dhammaaday dhuurimaynu kusoo noqonnay waxaa lagu soo qoray arday nasiibka u yeelatay ee lagu qoray wasaaradda waxbarashada hawsha shaqada qaran ee iminka Soomaaliland aynu bilownay kuwii ugu horeeyay ka soo baxay faa'iidadii ay ka dhaxleen dawayl wada ogna isla markiiba sharikada qaato shaqooyin siiyay waxa intii kale markii ugu horeysay shaqo helnay intii ku xigtay ayay shaqooyin u heleen shaqada maxay ku heleen ilaan farsamooyinku way kala duwan yihiin maxay shaqada ku heleen waxay ku heleen in loo markhaati furo in shakhsigaasu yahay shakhsi discipline leh anigu horta waxaan u arkaa faa'iidada ugu weyn inay tahay isdhexgal waayo imika waxaad moodaa jees walba inuu meel ootay oo aan dadku isu gudbin gobolla hadday tahay reeraba hadday tahay marka wuxuu keenayaa wax midnimo Somaliland ah ayuu keenayaa dadaan is arag dadaan weligood wax wada cunug lahayn meelo kale ka kala diimid baa walaalo ku noqonaya digtoonow kow laba saddex samo kuwaar sareeye caalanka suudhan biilay dhulkiisa samo kuwaar iyo bogaadin sugan hambalyo suuban kugu salaane sama kuwaar hambalyo suuban kugu salaane sama kuwaar intii la dhaqdaa dhow la dharyaa waxaa dhaxasha waxaa didido nin dhiira libta u soo dhaqsatay
wadarta guud ee ardaydii dhammaysatay labadii dufcadood ee barnaamijka shaqo qaran waxay dhammaayeen 2500 oo arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho laga soo kala xulay gobollada iyo degmooyinka dalka. himiladii rumowday ee madaxweyne muuse biixi cabdi ee ka midha dhalinta iyo jihaynta dhallinyarada waxaa laga dhaxlay dhallinyaro midaysan isjecel oo dhinac walba ka dhisan. ninkiis dhigta dhashiisu qadaa